markay soo dhowdahay afuufidda suurka qiyaame wuxuu alla weyne soo dirayaa dabayl ama riixaan aad u macaan wuxuuna riixaasi alla weyne amrayaa inaysan kaga tegin dunida dusheeda qof qalbigiisa ay ku jirto wax yar oo iimaan ah oo la eg quraasho maxaa yeelay marka ay qiyaamaha dhacayso waxaa iskugu soo haraya dunida inta ugu dullisan uguna sharta badan qalqiga uu alla abuuray oo idil intaasi kadib wuxuu alla weyne malagga Israafiil amrayaa inuu afuufo suurka koowaad waxaase markaasi dhimanaya wixii dhulka iyo cirka ku sugnaa intuu alla weyne doono mooyee sidaasina waxay dunida ahaan doontaa 40 sano oo kaamil ah korkeeda kuma sugnaan doono qof nool wallaahi kuma sugnaan doono korkeeda jinni iyo insi iyo malagba ilaa aan ka ahayn alla weyne dhammaan dadka oo idil waxay ka hoos mari doonaan ciidda ma jiri doonto maalintaasi Maraykan Ruush Ingiriis Jarmal Soomaali Sacuudi iyo wax walba oo la mid ah maalintaasi markuu alla weyne ka dhigi doono dhulka si aan horey loo arag wuxuu malakul mawdku ku dhihi doonaa alla weyne malakul mawdow ayaa soo haray oo qalqigayga ka mid ah insaankii waa ay dhinteen rabbigaygiyo jinnigiina waa ay dhinteen dhammaantood malaa'igtiina waa ay dhinteen rabbiyow dhammaantood waa ay dhinteen malaa'igtii insigii iyo jinnigii iyo wax waliba oo cirka iyo dhulka ku sugnaa waa ay dhiman doonaan maalintaasi ilaa aan ka ahayn malakul mawd markaasuu alla weyne weydiin doonaa malakul mawd ayaa soo haray oo qalqigayga ka mid ah wuxuu dhihi doonaa ilaahayow allow waxaa soo haray jibriil mikaa'iil israafiil iyo weliba aniga addoonkaaga ah hortaada taagan markaasuu alla weyne ku dhihi doonaa malakul mawd ka qaad nafta jibriil malakul mawdow markaasuu ka qaadi doonaa markaasuu alla weyne ku dhihi doonaa yaa soo haray markaasuu ku dhihi doonaa mikaa'iil iyo israafiil iyo aniga addoonkaaga ah markaasuu alla weyne ku dhihi doonaa ka qaad nafta mikaa'iil malakul mawdow markaasuu ka qaadi doonaa markaasuu alla weyne haddana wuxuu ku dhihi doonaa ka qaad israafiil nafta malakul mawdow markaasuu haddana ka qaadi doonaa markaasuu alla weyne jalla jalaaluh wuxuu weydiin doonaa malakul mawd cidda soo hartay markaasuu ku dhihi doonaa ilaahayow aniga addoonkaaga ah oo malakul mawd ah ayaa uunkaagii oo idil ka soo haray markaasuu alla weyne ku dhihi doonaa dhimo malakul mawdow adigana dhimo malakul mawdow dhimo malakul mawdow waa uu dhimanayaa malakul mawd markaasi waa uu dhimanayaa malakul mawd markaasi markii uu dareemo xanuunka nafta malakul mawd wuxuu dhihi doonaa allow awooddaada iyo isla weynidaadan ku dhaartay haddii aan ogaan lahaa inay sidaani u daran tahay nafta waxaan kaa dalban lahaa inaad iska kay cafiso oo addoommadaadii iyo qalqigaaga guud ahaan ee aan nafta ka soo qaaday waa uu dhintay malakul mawd waa uu dhintay malakul mawd markaasuu alla weyne dhulka soo fiirin doonaa iyadoo haawanaysa markaasuu ku dhihi doonaa alla weyne adduunyooy aaway webiyadaadii aaway badahaagii aaway geedahaagii aaway qasriyadaadii aaway boqoradaadii aaway boqorada carruurtii ay dhaleen aaway kuwii kibirka badnaa aaway carruurtii kuwa kibirka badnaa aaway kuwii aniga la'aantayda inay noolaan karaan iska dhigay aaway kuwii ii shariig yeeli jiray aaway 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 waryaa maanta xukunka iyo boqortooyada ila leh kuma maanta xukunka iyo boqortooyada ila sheegan kara adduunyoy aaway kuwii kibirka badnaa iyo carruurtoodii aaway boqoradii iyo kuwii ay dhaleen aaway kuwii kalin jiray aaway kuwii ka tilin jiray aqalka caddaa aaway kuwii ka tilin jiray karamlinka aaway kuwii ka tilin jiray madaxtooyadii aaway aaway halkay ka baxeen yaa xukunka iyo boqortooyada ila leh waryaa maanta xukunka iyo boqortooyada ila leh markaasuu alla weyne isaga isku jawaabi doonaa lilaahi alwaaxidi alqahaar maanta waa maalintii xukunka cadaaladda ahayd ee dhacaysay maanta waa maalintii xukunkii cadaaladda ahayd dhacaysay maanta waa maalintii xaqa iyo baadilka la kala saari lahaa ma jiri doonto maalintaasi maxkamad shacab
mid federaal ah iyo mid dadka lagu dulmiyo iyo mid kacaan maanta waxaa jiri doonta maxkamadda alle oo kaliya huwa alwaaxid huwa alwaaxid alqahaar huwa alwaaxid huwa alwaaxid markii magacaaga lagu dhawaaqo oo uunka hortiisa oo idil aad soo istaagto oo aad ku dhahdo allow maxaad iigu soo diri weysay digniin oo aan ku soo xaadiri doono kalfadhigan maanta ah adduunyada aad u qabatay wuxuu alla weyne ku dhihi doonaa waa aan kuu soo diray digniin maxaa yeelay waxaad maalin walba 17 jeer akhrin jirtay ragco waliba aayad miyaadan akhrin jirin aayadda ku jirta suuratul faatixa maaliki yawmiddiin ma taqaanaa boqorka aad sheegi jirtay maalintaasi waa aniga boqorkaasi waa aniga boqorka maanta kala fadhigan kala baxa ah isku kin yeeray haddii aad ku tiraahdo allow yaa i soo gaarsiiyey digniintan waxaa lagu dhihi doonaa laqad jaakum rasuulun min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufun raxiim xaqiiqdii waxaa idin yimid rasuulka Muxammad sallallahu alayhi wasallam oo aad si fiican u garanaysaan isagu Muxammad sallallahu alayhi wasallam waa mid idin jamasho badan xaggiina si aad u hanuuntaan isla markaana aad u toobad keentaan iyo inaad gashaan jannada iyo kuwa laga koriyo ciqaabta naarta mu'miniintana isaga Muxammad sallallahu alayhi wasallam waa mid u roon oo u turid iyo naxariis badan uunka haddii aad ku tiraahdo allow ii fasax aan kuu keenay marqaatiyo waxaa lagu dhihi doonaa يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون maalintaasi marka carabkooda gacmahooda iyo lugahooda ay ku marqaati furi doonaan wixii ay fali jireen haddii aad ku tiraahdo allow ii oggolow aan kuu keensado qareeno i difaaca aniga waxaa lagu dhihi doonaa اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا waxaa lagu oran doonaa akhriso kitaabkaaga adiga laf ahaantaada baa isugu filan isxisaabin oo korkaaga ay ahaan doontaa maanta haddii aad ku tiraahdana allow ii oggolow maanta aan iska bixiye lacag madax furasho ah ama wakiilasho shakhsi ah wuxuu alla weyne ku dhihi doonaa yawma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim maalin aysan maal iyo caruur toona wax tari doonin mid ma ahee ee isagu ula yimaada alla weyne qalbi fiyow oo ka fiyow shirki iyo munaafaqnimo haddii aad dhahdana racfaan ayaan ka qaatay xukunkaaga allow wuxuu alla weyne ku dhihi doonaa ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد hadalka iga soo fulaa aniga ma aha mid la bedeli karo oo anigu ma ihi mid dulmiye ah in yarba ha ahaatee addoommada waxaad aakhirkaaga dhihi doontaa allow intay ii waddaa markaasaa waxaa lagugu jawaabi doonaa يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد maalinta aan ku odhan doono naarta jahannama ma buuxsantay waxay odhan doontaa ma jiraan wax dheeraad ah oo soo socda badaha waxay noqon doonaan dab naar ah oo adduunka dhan sidaasi u rogaya iyo qaraxyo aan weligood ibni'aadanka arkin suurayso walaal marka xiddigaha soo quban doonaan marka buuraha laga yeeli doono kuwa taga oo marka duurjoogta dhan la isku keeni doono markaasi kadib waxay dunida noqon doontaa mid gudcur ah wax walibaana way baabi'i doonaan yar iyo weynba إذا الشمس كورت marka qoraxda la duubo oo ay mudubaato lana xooro وإذا النجوم انكدرت oo marka xidiguhu soo quban doonaan وإذا الجبال سيرت oo marka buuraha laga yeeli doono inay tagaan وإذا العشار عطلت oo marka hasha tobansidada ah ay dayici doonto dhasheedii وإذا الوحوش حشرت oo marka duurjoogta la isku keeni doono si wada jir ah وإذا البحار سجرت
oo marka baduhu ay noqon doonaan dab ololaya oo kale ama ay soo butaaci doonaan وإذا النفوس زوجت oo marka nafaha lagu lari doono jirkooda وإذا الموءودة سئلت oo marka ilmihii dhediga ahaa ee nolosha lagu xabaalay sidii mushrikiintii carbeed ay yeeli jireen la isweydiin doono بأي ذنب قتلت dembigee ayaa loo dilay وإذا الصحف نشرت oo marka waraaqaha qoran ee camalada samaan iyo xumaan qof walibaa la soo hordhigi doono iyadoo furan وإذا السماء كشطت oo marka cirka la xayuubin doono oo laga rujin doono meeshiisii وإذا الجحيم سعرت oo marka naarta la hurin doono si ay u olosho وإذا الجنة أزلفت oo marka jannada la soo dhowayn doono علمت نفس ما أحضرت markaasi qof walibaa wuxuu ogaan doonaa wixii uu la yimid oo samaan iyo xumaan ahaa إن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور